ما وعاشان الله هذا الله ما كم كرفوا يسون الله هذا الله مدحوينه كجودا تلدين ويا كجودا ما أنت تلد عيد كجودا كرامين ولا صوت هذا وفق صوت تلينية وفق صوت تلينية ورت الدولة وطني هي أضوب هي كلمية إسكتين ما الدولة حجز ما أنك ساقبتي لو كن يتوانكي أي نقطة الدولة شيعانا أنا قلت شيعان تقول سمية ماشي ليها كرادك ما أنت واحد نقطة شيعان كلو لو سمية ألف وين وقال حجز هو سكاها بدون السن iyo habar jeclaa salaadiinta habar jecel waxaan leenahay joojiya jeegaha wala inoo hanjabiya waxaan inaga dhigay waxba iska celin kareen oo kala qaybsan marka xoog leedahay ee lagu qiyaasay lagu qadariyo ayaa nabadda la doona joojiya nabadda raadinaysan taariikh aan u dhisnay iyo wadooyinka u dhisay laascano ayaa saa u daawanaya ay cusbitaaladii kaasiyadii la waran xasuuq oo magaalada laga burburiyo على رجع واوين كتير حشوتك يدقن كيني كي دين تاني يكيش يكي دقن كي يكي دين تإسلام كتير أضياش أنا ما أنت وما مضى قاطي يروح ونحي وقال يا سرادين بدنا متيجي يعني عاركيدو حتى أنا أسطورين ودي بسه ودي بيه ميكروفونك وانا يغير كعي وعليها كحشور إلهي كحشور سبحانه وتعالى إرجع ما قبل سنكرت إرجعوا ما قبل سنة تبقى قرلوجد ما قبل سنة عينما لا سعانة وتهسيج بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مركو إلهي ومع الله سبحانه وتعالى إلهي قاه نمعوين كبدا إن السيئة ما يمحض الله ونو شكر نغيناه وحده انت واحي قوى ريال ما انت وحن شعر هينان دور arrimood ka hadlo maadaama ay nagu soo deegan tahay maalin qiimo weyn nagu fadhida marka horeysa waxaan aad iyo aad u hambaleynayaa madaxweyne ku-xigeenkii Somaliland Maxamed Cali iyo raggii ka soo shaqeeyay nabadii Elf weyn ay nagu rafatay ciidamadii madanigaana qarameeyay laba talaabo aad iyo aad loogu baahnaa ayay ahaayeen waxaa kaloon hambaleynayaa ciidankeena qalabka sida geesiyaasha iyo ciidamada nabadgelyadaba waxaan inagu soo muuqatan maalinta berit 18 May oo ahayd in fact inaan u bixino maalintii guusha aynu ka guuleysanay عدوي نعبكي فغش والأكتر مانتا وحلو دبال دقي شاريتو سيديت نقول هذه ناس قال جسوا قوليستي إنك حرية دينا ما أنت قال إن واحد لحية لبعضن كيشون 1960 جبهة مركا إنه ما ننتهي حالينه ما هن إن ما نتنا كدينا ويا ما ننتهي جوش اللي هاي نسي فيكتوري دي لحية لبعض كان تونان حوجنو ونقطة معلنتي independence استيتون كما هنا أنا قودينا إذا صوب عندك الساعة دون كم معلنتو في إيه أي وصل مقدقان وحين تاي راعة ولا ليال وحلاها مانتا أرتام استيتون كمي قربها يدي بدأ بيجودها وحن شاء الله إنسي مقلهم مليسن وميل قرا لو تقبطه تبالك دقينا إن لو قبطه سيبوا حن كل هذه دتك دبته تفضيلهم كل شيء ويدان إلى مال ما نتعقي ما عليه إلهي جوشي نجسي نعبكي نحسوقي الملك هو السمين ويدان تقرر موضوع السكرتان ما أنت الشعب قالوا ألو سيهي أروتين إلى تشيدلي أي عن كيستان سوما لا نكذب بالدقيقة إلى تشيدلي تذكروا ألو سيهي ما أنت سيان هرو على صنبه وألو سيين لأن قلوب تيني باسكو سوتشي سي الشعب جينا marka waxaan jecelahay in nabadgelyada 18 May qof kasta warta xil iska saaro qof kasta yaanu ku haleen ciidamada nabadgelyada qof kasta oo maanta laga bilaabo waxa tahay ciidankii nabadgelyada ka mid tahay waa inaynu foojignaana waa inaynu
ilaalina nabadgelyadeena ay maanta Soomaalida waxba qabsan kara weyday ay maanta doonaysaa inay qasto ilaahay baan inaga joojin doona alxamdulillah ilaahay ayna ka hosgalnay subhanahu wa ta'ala inta waxa raaca maanta dalkeena dee Muuse wuxuu ka tagay ICU ka tagay intensive care unit uu ka tagay qof ku jira ICU-na in la ilaaliyo oo dawladda loogu dadaalo moojaane in la qaso oo wax la yeelo loo baahna maanta dalkeena iyo ummadeena uma baahna wax qaso uma baahna maanta dalkeena maanta wax mideeya oo shacbiga 34 sanadood nabad ku naalooniyay rajada ku naalooniyay biyasiinin oo cashuurta bixiya oo cashuurta waxa ka soo aanu jirin aan dawo lagu siinin aan caafimaad lagu siinin aan waxbarasho lagu siinin aan lagu siinin magaalada biyo lagu siinin online lagu siinin intii dawladdu bixin jirtay ma bixino laakiin uu inta shacbi bixin jiray in ka badan bixiyaan cashuur aan qaadi karin way bixiyaan nabadda laakiin haysta wax loo dhigaa aan jirin nabadda ka ciyaarina waxaan leeyahay ragga waaweyn ee ka tagay xishoodkii iyo dhaqankeeni kii diinteeni iyo kii dhaqankeeni iyo kii diinta islaamka uu ka tagay odayaasheena maanta culimada qaatay ay yiri waxaan nahay uqaal iyo salaadid midna ma tiidin inta meel soo fariistaan inan caarkeedu hatta aanu astureen u dhiibiya mikrofoonka oo reer kala cay waxaan leeyahay ka xishooda ilaahay ka xishooda subhanahu wa ta'ala mar haddaan sharcigiisa dhignaadeen Soomaaliland nahay ilaahay waxaan qabiil iyo tamiya ilaahay ka baqa subhanahu wa ta'ala ilaahay oo dadka masaakiinta ee maalin kasta ka naxinaysa ka joojinaya maanta waddankeena wax aan cay ahayn ka soo bixi mayso asxaabtu way qarsoontay dawladdu way qarsoontay codkoodii waxa qoray la maqlaa waa ceebteena iyo nimanka sheegtay uqaashiya salaadiinta ninka jilib ka soo jeeda sultaan sheegtay sultaanku waa inuu dawlad jilib u xukumaayo hoos yimaadeen baliyo xukumaya salaadiintii 90kii wixii ka dambeeyay waxaan u aragnay inay fake wax lagu shaqaysto oo Soomaaliland dhibaato u keenay oo qariyay institution building aan dhisnay nation building ummad aan dhisnay qaran dhisnay waxay naga qasiyaan nimankaas dawladda waxaan leenahay wasiirka arrimaha gudaha waxaan leenahay sharci ka soo saar nimankaas salaadiinta sheeganaya غير مسؤولين تاع dadka kicinaya inside marka sameynaya ee sharafteena aysan Soomaal dhan inagu maadsanayso sharci ka soo saar iyaga iyo meediyaha soo daayaba qurankood iyo bulacada soo daynaya waxaan maanta leenahay waa inaynu 34 sano inaga haysanay cid kale inama haysan waliba isaaq bay haysan soo sheegay ilaahu naxariistay maxamed xashan caayiga oo shaqada sheegay darada sheegay ana in badan sheegay maxkamad taliyaan ee maxkamadda sare xaloo baahay isaaq in si degdeg la isku yimaado waxayna ummadda qura ee Ingiriis xukuumiyay 80 sano ee juhala wala weyn oo aqoonin xukuumiyay 34 sano ee madaxweynaheena u horeeyay oo dalka ilaahay nasiibkiisa ku xiriyay 9 bilood 17 bari kaba kala baxaynahay oo weyn alxamdulillah maanteenu madaxweyne aan leenahay dalkeena u yaalan ee kii labaadna haddana ku furay jabada garxajisa la baxday dadkaas ee kii saddexaadna aan buurta u galay caare u galay dadkaas dhaqanka haddaynu bedelin oo maantana aan niraha ira kala baxa kabaha dal heli meesuu burburiya dalku u burburiya inagoo saa magaciin loo baabiyey ya ayanu kursiga oo bixiya hawiyo ee wasiir ku xigeenka ra'iisul wasaare ku kala dheereen doona dawladdan garabka laga galo dhammaan is qabsado wixii qaldan tahay sheegto iyo mahadsan la timaada siyaasad cad
وهجوجيسو سومالنا وان لا hadlayna iyo wala Soomaali wax Soomaaliya ma jirto wax Soomaali gafarnayna ma jirto laba kun iyo 12 khasaare inaga soo gaadhay wada hadalkii inaynu ku celino oo rag inaga mid wala ku faanaan laabta garacaan ina anaga la hadlayna la arag wakaas la hadal balwaninka la hadla Xasan Sheekh ila waxana xilma ka Soomaaliya isku bareeriye maanta dalkeena waa loo tashaday Soomaaliya dhan waa tashatay yoolkoodu waxa weeye waa ceergaabo Soomaaliya sanaag iyo cayn caruurtooda lagu koriyay loo aan lahayn lagu koriyay xasuuqeeni ma caruurteena u sheegi weynay oo ka xishoonay aan sheegno oo adduunka lagu dhigta oo inaga leeyahay maanta waxa xasuuqay ku ina xasuuq wala maanta waan xasuuqay taariikh aan u dhisnay iyo wadooyinka u dhisay laascano ayaa saa u daawanaya ay cusbitaaladii kaasiyadii la waran xasuuq oo magaalada laga burburiyay dadka maanta aanu beesha aan walaalanahay ma aflagaadeen ma ilaakum kuwa hadda maanta gacanta ku haya ee hoos galay ilaahay baa ku dhaariyay fiqi on gaalka ay tageen waqooyiga tagi kareen oo gurigiis aan habeen qura seexna kalba habeen meel seexda nabadgelyada raan kalkule maanta fiqa ay caawinayo Soomaaliya sana gal qabanaya waxaan kale ummadda ku ciyaareen fadhiyo waa kuwii ku xasuuqay ininka habeen sayidi waxaan bal dhulbaantay gaalbad ka dhulbaantay mooday dilay maantana kuma ogola anaga la dooniya reeshaas baadiya hawiye dooniya laakiin ma doonino hawidanteenu kuma jirto in Soomaaliya dadkan ku dhaqan ka ahayn in dhaqan kale dhaqan ka nahay ee sodada kufsanaya ee martida diliya ee dhulka boobiya ee xawaala qodanaya ee maxaan cunaa wax kale aqoonin qaladkeena u geynay ma ku celimayno dadkeena hooga u bilaabina eergaab ma qabsan kartay eergaabo ما قبسنا تجيب قرلوجد ما قبسنا عينما لاس عانو تهسيج لاس عانو تهسيج دول كوين وضع لين هاي بالبلاد لين هاي إرجاوات لين هاي هرجيسات لين هاي إلهي بيسكنت إسرائيل هاي جوجي بانه جوجي أنت أكو جوجي عيبت وحلين هاي بقول ما أنت لا لقاونا بدي مشرتو maanta waxa weeye walaana dalacsaday walaano hanjabiya waxaan naga dhigay waxba iska celin kareen oo kala qaybsan marka xoog leedahay ee lagu qiyaas lagu qadariyo ayaa nabadda la doona joojiya nabadda raadinaysan lacag iyo baad been nabad lagu helo ixtiraam iyo xoog laga baqay ayaa laga helaa basiis oo stress bagaalo tala ayaa nabad lagu doona على هاي نبض محمى لكن لما ربما ما أنت وقت جيد ما تشوكتو شينا يسكو هالينيان إسماعيل عمر جيلي يسكو هالينيان قدر بيسكو هالينيان فقه بيسكو هالينيان أنتوا حول سينسا وإن نقول أينو تتكلم مدينة إنه قودين هو من المدينة إنه قدوة هو حق أن كنت هاجن هاي إنه ولا لابتين ولا أحسن المنافق أنت أي لابتين وي waxaan soo jeedinaa markaa inaynu dalkeena iyo dadkeena aynu ka daynaa aflagaadada iyo ceebta hablaha wax leena xishooda hablaheena waa xishooni jireen mikrofoon ma qaadani jirin ka daaya mikrofoonka hablaha ilaahay ka boqo ka daaleen madaxweynaha siyaasadda la kaalay tu arrimood la kaalay tu difaac la kaalay tu daaqil la kaalay tu nabadgelyo la kaalay بلاتفورم وحياة دول سيستم كانوا مدحويني هذا لا يسوق هي تلاذا كينتين بلاتفورم كارا أي كل شقية وسيرة هذا معها وحية وكانان سياسة هذه أريمات دي بدها كان هذا الدفاع كان أنا وكل جرب تاجن أدوك حقلي يان الله هذا الله ما وعاشا الله هذا الله ما كان بيقرفوا يسون الله هذا الله مدحوينه يكجولا تلدينه يكجولا ما أنت تلذ عيد كقوة الغرامين ولا صوت هذا وفق صوت تلينيا وفق صوت تلينيا تذكرنا على وحش الشهداء هلا إسعاوية أيها لنا هاي شارك على هالأوجادو أيها لنا هاي إلهي كبقى نمعد إلهي نسيي أي نقول شكر نقول المحبة قدرنا محبة استعال قدرنا تاسع وحكة سكات كان معي عندك كل بدلو
dhaqanka hore aan bedelo wixii dowladda ku qoonsanay albaabkan ku garaacnaa siyaasaya taasi madaxkiisana ka jooji tan hagaag aan niraaho haddii maalin ma niraaho reerka madaxweynaha ka soo jeedaan horta dowladdu waa dowlad wadani iyo udub iyo kulmiyo isku tagay ma dowlad garxis dadkana waa dowlad garxis waa qalad haddii dowladaha reer siino hadda waxa cabanina ha dhowto haddii dowladda marka dadka reerkooda ka dhigto ha cabanina dowladdu asxaab bay ahaan jirtay riyaal markuu joogay waxa la oran jiray waa dowladii udub magaciga joogay waxa la oran jiray waa dowladii udub maalinkii ay soo qabtay 2010kii ay noqotay dowlad jeegana ee lagu sameeyay meesha la yaa gar adag maantana waxay noqotay jeegan kale oo lagu sameeyay elaf weyn oo garxis hoose ka habdoonisan iyo habar jala hala joojiyo jeegan taleenays salaadiin habar jala waxaan leenahay joojiyo jeegan joojiyo jeegan Soomaali wax u baahan tahay wax mideeya wax faraarayeen uma baahna wax mideeya u baahan oo cadow ka celiya oo caruurtooda mustaqbal siiya oo dowladnimo dhisa oo institution isa u baahanti kolba laba reer in ilaahay waan jecel reer kale waxay qabanayna hal geed kale u gaari maayo ma geedkaas inuu gaane Cabdiraxmaan Tuur baynu qabanay ma cigaal baynu qabanay ma geedkaas inuu gaane ma waxaan qabanay bahalka musabbiح ma geedkaas inuu gaane masiiraayin geedka ku gaane كداية شركة كتشوشية عن هناك شقينا اسكو دركا فيش صحة كتشوشية عليه الصلاة دين تعبر شعري أنا رنتا شيء تشوشية له ولا يوم حلا هاي وأقبل قديها سومالي دور دي ما جرتو أنت إزاي سومالي بابي هرتبي بابا يان بين ذاكرين إنك على هو هجاجين دونا أنت هالكن اسكوي هنو أيانو كلا صاري دونا وإنه قرن دونا إسكت هاي الدور تقول هذا ده فاملي باتين قيس باتيني تي وحشقين ويدي توبي من إنسان سمايستا إسامح اسمه سامحين سيسكت توحين وحقول يكون شيء سومالي لان بابينو وحكوا كده حياه شيء سنير هيك مجر ولا غيره ماشي وده كوعياله دارات كي هويه هروحينتي وبدن ماشي لا ماشي ولا قصاري ما wax leena waa ayaal dalkeena alaysta qofkii maanta tuulo Soomaaliyeed hagaajiyay dad waxa la matakiyo Soomaaliyeed oo hagaajiyay la mid tahay waxa leena hada xishoodo dadka Soomaaliyeed laga xishoodo Soomaalida ayaa maanta Afrika ugu xun taa ka fakara Abduwale waxaan ku leeyahay Abduwale gaaso Soomaaliyeed wax yeeli karmayse dawladii qaado